extraha ugu dardareysaan joojiya meel laga keenay ilaahay baa og qof baa soo shaqeeyay sila u soo maray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو فيديو عصب هالكا نقد داونيسنا وكنالكا ناتشو عرالي فالله واكو ما سنتا داوشada muuqaalkan iyo sida mar walba ila socotid aad ila joogtid aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waa walaasha oo mar kale video cusub maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo horta shax soo shubta maantay qodobo muhiim ayaan ka hadli doonaa insha Allah su'aanay ka baday bismillaah aad baan shax u jecelahay iska ogaada ما شاء الله شح soo shubta nala jooga maanta waxaan noo hayaa موضوع مهم موضوع حساسي موضوع u baahan walaalahayga insha Allah si fiican inay u fahmaan موضوع u baahan in maaragtay laga taxadiro موضوع u baahan maaragtay in dadkeenu ka digtoonaadaan horta waan soo laabtay sida u jeedaan gurigeyga ayaa nabad imid alxamdulillah da mar aragtaan backgroundkaas de waa gurigeygii ya marka insha Allah guriga hooyo waan ka soo tagay gurigeygii baan imid safar kadib alxamdulillah inkastoo guriga hooyo iyo gurigeyga waxba ay ku kala duwaneen anyway maadaama aan dhoof badanahay bixitaankaygu aad u fara badan yahay la iskama socdo waaye arag baa la noqdaa ninaan dhul marin dhaaya male safarada badan waxay ay dhaxlaan ama ay abuuraan inaad wax badan ka baratid inaad beecada dhex gashid inaad bulshada dhex geli kartid bulshada siday u yihiin sidee bay u dhaqmaan maxaa ku kala duwan tihiin cuntada maxay kula duwan yihiin la dhahab dhaqanka shaqada waxbarashada yani waxyaalo badan lagu kala duwan yahay soo arkaysaa aad bay u wanaagsan tahay inaad baxbaxdid insha Allah aan hore u galo mawduuca maantay waxaan rabaa mawduuca maanta Turkiga inaan ka hadlo maxaan Turkiga ku soo arkay runtii waxyaalo cajiib ayaan Turkiga ku soo arkay dadkeenu mar walba waxbay ma ogtahay marba meel bay uga shidan tahay hadda sanadii ugu dambeeyay iskaba dhehba 2 sano ugu dambeysay ama 3 sano ugu dambeysay dadku si aad ay Turkiga ugu soo qulqulayeen oo runtii waxay noqotayba waxaan ku tilmaami karaa Kenya oo kale ama Imaaraadka berigi dadka aadkay u degnaayeen oo kale laakiin wala wada yimid hadda Turkiga meel walba laga wada yimid ama wadanka ha noqoto ama Kenya ha noqoto ama Imaaraadkii ha noqoto ama Carabiyi ha noqdaan adiga calay taxaal wixii dhan soo duuduub Soomaaliya dhan Turkiga bay isku yimid Turkiga waxa loo heystay ama la dhigi jiray sidaan ognahay walaalaheena weeyaan Turkiga dadka wanaagsan ma jiraan yani waa meel lagu noolaan karo aniga kula hadlayaba sidaas ayaga dhacsaneed laakiin information badan baan igaga hayaa insha Allah wax badan baan ogaan doontaan laakiin hadda waxa jira waan ii dambeysina laakiin muuqaal yar bay la daawan doontaan muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay ganacsatayaashii Ankara aniga markaan ka imid bay dhacda arintan inta jooga ma dhicin ganacsatayaashii Ankara dukaamankii adi dhowr dukaan baa ku yaala Ankara adiga saddex dukaan horta waan arkay hadaysan 4 ahayn saddex horta waan arkay marka dukaamankii ganacsatayaasha Soomaaliya oo dharka weeyaan kuwa kale oo maqaayadihii iyo wixii kale caradaas ay ka badan yihiin ba oo lama xisaabin karo kuwaasi marka ganacsatayaashii Ankara magaalada Turkiga deganeed ayaa xabsi loo taxaabay bal mucjisadan arka insha Allah aniga ra'yigeyga iyo waxa aan soo arkay warbixin dhameystiran gadaal insha Allah laakiin muuqaalkan ila daawad yarka sidaan kamid ahay mulkiilayaasha iyo hantiilayaasha guriyaha ka gatayna waan kamid ahay wixii ay bahalkii waxaan idin sheegayaa shakhsi iga jeclaa Turki haba yarata ma jirto waxa weeyaan rajo wanaagsan ayaa iga muuqatay Turki macnaha jacaylka aan u qaba aawadii anoo dhinaca islaamkana kaga dabaqaya falillahi alhamdu wal minna laakiin maanta waxaan taaganahay sayidka aan taagnaa tiisa kale aan taagnaa mu'minka god laba jeer laga wada qaniino aniga waxaan dadkii la qabtay qof walba Soomaali ah baa wuxuu ka aaminsanaa islaamnimada xaqiisana nidaam waa wadan muslim ah waa dad islaam ah dad badan baa rajo kala ah dad badan baa had soo socdo rajo kale dad badan baa raba inay soo guuraan ilmahooda soo raraan marka dadkaas ayaan ma aragtay anaga inta ila midka ah baa runta ka sheegaya waxa aan ku soo arkay iyo sida ay tahay Turkiga taan kamid ah wallahi alazim inaanan arag way jirtaa waa maqlayseen maxay Liibiya iyo maxay saxaraha dad baa dad garaacay oo ku tuntay waxa waa maqla laakiin xishmad darrada dawladdan oo inta la arkay eg oo quwadda la arkay eg leh baa booliiskeedii oo wax akhristay oo jaamacad ka soo baxay baa cadownimada iyo anshaxumada ay maxanaha ay waxa leh waligay inaan ku fakirin
weligay aanan ku fikirin inta aan leekahay weligay ma arag xero booliis indhahayo maan saaran dad muslimiin sheeganaya noocaa u dhaqmaya weligay kuma fikirin weliba qofku hadduuba qof uu yahay dee dadka haddaad galti tahay oo aad dambiilo tahay waxaad doontidba ha lagugu sameeyo laakiin adoo miskiina oo dalkii wax ku soo kordhinaya oo maxay ahaydee wax allaala wax aad isleedahay waa kaa khaldan jirin oo aan laguu digin in sidaa lagula dhaqmo rag iyo dumar toonna annaga waxaan qaadan karna ma aha waxaan qaadan karna ma aha ma nihin dad bilaa damiira ma nihin dadka soomaalida ah ee intay arkaan dhibaatada intaa la eg dad ku raaligelinaya dhibaatada dadka walaalahooda lagu samaynayo waxaan arkayaa dadkii muslimiinta la xiray ee masaakiinta xoolahooda maqnaayeen intay mikrofoona soo qaateen haa waxa weeye iyagaa khaldanoo shuruucdii magaran dalka ayaanay u hogaansanayn waar dee soomaaliya dee sharciga barta dee qaanuunkayna garanay waxaas waxay ma waxaasaan ehel iyo walaalo ku nahay laakiin waxa weye indha aada lahaada anigu ismadihi dadkan sharciga yaqaanaan turkida ah markaan akhriyey waxay ku dhaqmayaan daliilaheenana waxa way haddayna isu sheegin oo qof walba daliishiisa safaarad inta loo hagoogto oo waxay loo bahaleeyo dawladdeena aan daba soconno hadday waxa way dadka wax tarayso laakiin dadka waa in la toosiyaa safaaradda waa inaan toosinaa waa inaan khaladaadkeena u sheegnaa waa inaynan u nacamlayn khaladaadkooda waa aynan dusha ka didin jaaliyad baa la isku dayaa in la sameeyo rag anigu aan garanayo oo culimo ah oo ilaa istanbuul jooga oo intaan imid aan arkayey oo ka shaqaynaya jaaliyadda iyo khayrkeeda baa markii la shirayo dad yar baa shiraya war ummadda isu keena ummadda in cilmi laga okay muuqaal yar buu ahaa maamadan aad bay u xanaaqsan tahay wallaahi waxaad u malaysaa qalbigayga miyay ku jirtaa aniga laftigayga wax badan baa kusoo arkay sheeko yar baa idinkaga sheekeynayaa bangi international ay leeyihiin hadda waa international oo lacagaha lagala baxo ayaan lacag kala soo baxay lacagta waxa ay ahayd waa idin sheegaya cadadka $400 bay ahayd waxay iigu soo saareen nin konton bay iigu soo saareen hadda waa ka dhageysiyaa nin konton bay iigu soo saareen haddaba 400 baan soo qaaday waxaan isiri bal 200 sarifo oo hadda isticmaal 200 hadhow iska soo isticmaal bal hadhow ama biri oo kala aan isiri 400 maana wada sarifin ninkii baa waxaan u dhiibay 200 hadda dhageystaya hadalkaygaas 200 ayaan u dhiibay ninkii ii sarif ayaan iri 200 $100 oo konta kamid ahaa waa fake maxaa idin iri fake weeyaan dollar saxa maba ahayn waana bangi international lacag lagala soo baxaayo uu wadan dhan uu dawlad leeyahay and then ninkii baan ka yara shakiyay waxaan ku dhahay waayo wax yar baan si qof baa ila taagnaayo qofkii waan yar u sheekeynay ninkii baan ka yara shakiyay waxaan si lacagta ama ku bedel lacagta wuxuu igu yiri lacagtan waa fake korku iiga qoro lacagta waa fake wuxuu igu yiri ama tour ama bangiga ka soo qaatay kula waraani waxaan ku yiri bangigan kugu dhagan garantii waliba bangi baa la dhahay garantii bangi qofkii yaqaan turki joogu yaqaan garantii bangigan kugu dhagan baa lacagta kala soo baxay Istanbul bayna ka dhacaysaa maxay taa walaalo markaas wuxuu yiri aniga miihi mashiinkeygana waan ku celceliyay meesha aragti su'aal aniga wiilku waan baxnay wiilku marqaati uu yahay uu joogaa aniga wiilku waan baxnay waxaan aadnay meeshii kale and then sarif kale aan raadinay sarifka kale sidaas oo kale wuxuu yiri mashiinku qaaday waa lacagtu waa fake and then waan soo noqonay bangiga baa usoo noqonay waan hubsaday ma ogtahay inaysan waxba ka qaldanay sariflayaasha bangiga baa usoo noqday waxaan ku yiri lacagtani aad ii soo bixiseen waa bangi international waardiyu leeyahay kaamirooyin buu leeyahay way u jeedinayaan lacagta kala baxay meeshii bay ku siiyeen makiinadii waxay leeyihiin anaga lacagtan feeg ugama jeedno lacagtan saan ugama jeedno lacagtan naag iswal waalayso iyo waxaan kula englishna dadkaas ma yaqaana turku un bay ku hadlaan wiil baa ii turjumaya taleefanka iiga turjumaya weliba iyadoo isyasayso iska siisiinayso maaragta naagta bangiga bay ahayd anigu waan xanaaqay waxaan ku iri boolis ayaan meeshan aadayaa booliska aad laakiin anaga hanaba dacweynin waayo anaga waxayna waa sax bangi wax sax ma soo saaro ninka weeyaan ninka qaladka waayo dadku badiyaa waxbay bedelaan shaki bay halkaas igelisay anigu waan orday waxaan ku iri $100 maanta waxay u goosaa qof masaakiin oo walaalkay wax u goosaa waayo qof Turkiya ugu deynaya aniga
kama samraayo boqolkayga doolar aan iri waan baxay waxaan aaday booliskii baan aaday booliska waddanka gabadhaan maamadan waxay leedahay boolis bilaa xushmad ah noloshayda adiga ma garanayo dee africa dadka ku nool laakiin intaan meelahan awoodda laho oo askarti laho dowladii laho ani uma malaynaynin dee wax askari bilaa xushmada saas inaan kala kulmi doono askartii baa u tegay meeshii baa waxaan taagneen wallaahi baa maray 2 saacadood hadda $100 aniga waxaan iri saacadaha iga baxayso horta waa inaan ka gungaaraa waxa ka qaldan waxaan waa inaan ogaadaa moogta ila xoolahaagii oo beebeel ugu dhacay $1 ahaaleed ka war oo lu dhici lahaa aandan waxaan ku dhahay booliska waxaan ku dhahay bangigaas baan lacag ka soo bixiyay ninkaasaan u geeyay waxaygana fake bay ahaayeen aniga meel kale lacag ka keen ma jirto marka waxaan u baahanahay bangiga iyo ninkaas inaad maaragteen xaqayga iiga dhicisaan qaladka meesha ku jira soo saartaan 2 saac kadib baa horta la soo galiyay midba mid uu ku ag marayaan anaga waxaas ma qaabilno baxa anaga waxaas ma sameeyno baxa anaga kan war adiga kibirka xushmad la'aanta waqtiga laga luminayo sida lagu la dhaqmayo waxaad isleedahay kuwan bil aadan miyaa wallahi baa marintaan xanaaqay baan caayay af English ku caayay markaas uu igu yiri lugteeda saan oo kale ahayd markaas uu yiri lugta daji yani sidee ii caayay kartaa adoo lugta sidaas ku kor saarint caay kalena maana dhihina dad xun baatiin baa ku yiri boolis noocan weligay ma aragan ku yiri English ama fahma ama fahmin English tacha baan kula hadlay ma fahanteen aniga waxaan qofka hadii wax laga sameeyo ma aamuso bisraaxa ma aamusi karo waxa dhacday 2 saacadood kadib nin baa ugu roonaa nin yaro weyn ah sidoo kale anima dhaqaaqayaan ku yiri soo baxa dhuuntaasaan ka galay marba mid baa askari baa agstaaga marba askari baa wax weydiiya adiga ugu dambeyn nin baa noo soo baxay yaro weyn dadku shantaas farood ilaahay ma simin ninka wax yar ugu roonaa hadda wax yar ugu roonaa baa noo soo baxay warka naga dhageysa qofka warka ka dhageysa xataa xushmad weeyaan maxaa idin haysta saasaan haysta yiri adiga wuxuu yiri bangiga anaga lama hadleene bal aragya bangiga anaga lama hadleene ninka sarifka ayaan la hadleynaa saasan ka caawinayna ninka sarifka ay la hadleen adiga kaamiradaada ima oo beedeen hadda waa mar qaaq dameer yiri oo daalnay waxaan ku leeyahay silxsanna aan kadib ninkii uu yimid kaamirada waan arkay alxamdulillah ninkii ajnabi buu ahaa kurdi ma aqaan wuxuu ahaa adiga ninkii baaba run sheegay oo lacag nooma bedelin hadaba yaa qaldan bangiga qaldan hadaba waxaan ku yiri waad u jeedaa ninkan igaraal naqa ku ninka halkaas ku raali galiyay booliska waxaan ku yiri kuwa bangiga hadaba lacagteeda qaatay wadankan malaaf lacagteega la bixiyaa micna maxaa qaldan maya bangi lacagteega ma bixiyo ma maleynayno anaga inta karaankeena ku sameeyna iska bax ma fahanteen ka soo tag xushmad booliskii dhan oo wadankaas quwadda leh awoodda leh dowladda leh lagu tilmaamayo booliskoodii baa saas u dhaqmaayo hadda waa booliskoodii baa saas u dhaqmaayo waxaa ka daran dadka shacabka ka daran bilaa xushmad way ku cunsuriyeenayaan waa dad dabeecad xun kiyaa kara buuq bay kugu furayaan runtii waxaa jira meel baasaar la dhaho oo laga soo adeegaa jira marka waxa dhacday meesha baasaarka oo meel waxa jira yaanyada qudaarta adiga ay qudaar oo dhan qofku uu rabo uu ka gadan karo meeshas marka tagtid aad saddex soo adeego waxay ku siinayaan qaarkood wax xunde waxa waa inaad xaq u leedahay inaad soocan kartid يعني في الجيسن كنت وانا حق ولا قف دنبا تاي لعك وwax soo gadanayo and then waxa leedahay tusalahan canab kan ama tufaaxan oo kale meesha ku kaaga soo bixiyo ama yaayadaan oo kale wax fiican ma ahan iga bedel way ku caynayaan saa waxana gadanin saanata kan baata luqadooda lagu caynaya ama fahmi luqadooda lagu cayn xushmada xagee taala waxba uga baahanaysa iska dawreejin waxaan ku leeyahay Soomaalida bahdilka lagu haayo qaarkood guriyihii baa hadda laga kirilaya dadkii anaga gurigi aan 3 sanad deganaa gurigan hadda sanadkii saddexaad baa noo socdo oo waxay nooga eg tahay bisha 12aad bay nooga eg tahay alxamdulillah ninka gurigan iska loo nin iska fiican way laakiin dadka guriyaha dhibaato lagu haaya magaaladii dadkii xushmad la'aan lacagtaadi adoo wato Soomaalida lacagta ugu badan wadanka ayada soo gelisa bila xushmad lagu la dhaqmayaa maxaa la dhahaa dadka ganacsadayaasha hadda arkaysaan laga xirxiraaya bila ixtiraam ganacsadayaal dhan oo wadanka lacag soo gelinayso wax ay ixtiraamayaan ma jirto ama passport Norwegian wado ama mid American wado ama mid Ingiriis wado ama Soomaali wado oo waa maba ku ixtiraamayaan aaway marka dadka dhigi jira Soomaali iyo Turkish Kurdish Soomaalida iyo Turkidu wax been weeyaan walaalanahay aan runta sheegaya public maanta waxa soo faray dadkeena ka digo walaalayaal is ilaaliya
meesha aad aadaysaan ka fiirsada mideeda kale lacagihiina dhacda waa la isdhacaa dhacdaa ka daran taxi baa soo raacaysaa meel konton teelo lagu qaadayo wuxuu kugu qaadayo 150 teelo keen buu ku leeyahay wax aad ka dhigi kartid ma jirto midda kale aan ku arkay aniga igu dhacday يعني lacag baa siinaysaa change taxiilaha inuu ku soo celiyo meesha laga rabay 200 oo tel nin baa anigu dhiibay 200 oo teelo baa Istanbul baa waxaan dhahay meesha sirta igee meel 40 teel lagu raacayo 200 iiga yani 100 teel iiga qaatay 200 oo teel u dhiibay 200 oo teel marka u dhiibay waa ninka iyo 20 teel ay dhiibtay ilaahay baan kugu dharshay 20 teel iyo 200 ma isku mid ah tuugnimada islay هو يعمي روب دايو انيغي بوق بان ku jirayo meel baan ka daahay waa la si marka la yarar la murmay waxaan isiri balboolisi waxba ugu wicina iska daa ha ku dhintay 200 oo teelo iska qaatay markaas aan ugu daray lacagtiisii oo kale ka sara ugu daray bal qiyaano inta salaag dadka lagu dhaqmay waa Soomaali qof kale oo cadaan ah kulama dhaqmi karaan carabta wadanka timid kulama dhaqmi karaan dadka ay saas u bahdilayaan waa anaga aaway marka walaalnimada la walaalsanayo wadankeena way joogan maxay u joogan fakara يعني ما aha wadankiina in liiga dhigaayo dahab ama wax fiican liiga qabanaa kan danba leeyihiin cilaaqaad iyo Soomaali Turki cilaaqaad way leedahay laakiin cilaaqaad sax ma aha dadkeena waxa la yahay madaxdeena Turki cilaaqaad baa la leeyihiin dadka silaca lagu haayo ka qabta mideeda kale aan ka hadlo arinta iqaamooyinka ayagoo lacag soo kordhinay Soomaalidii ayagoo maartay wax walba u huraayo wadankii dollar waa dadka ka hadla inkastay qaldeeyeen dadkeenu dollar inay baraan Turkida ma aha way liiradii bay keeni laayihiin waa dad wax badan aanan haysan waa dad dhaqaale badan aan haysan Soomaalida kii meeshay ka gaartay ayaga isku xoog weyn ma walaalka ma siisid oo baahan ma siisid lacagta inta Turkiga siinaysid ani waxaan arkay dad badan oo tagaasida wallahi baa maray 100 teelo markii la dhaho 100 teelo miyaha ho 40 kan teelana ku darso hay see 40 teelo ugu daraysaa qof baahan oo walaalka Soomaaliya kaaga baahan 40 teelo aad taksiilaha ugu daraysid aniga xaasinimo 2 liiro mata 2 liiro baan kaga soo cishanahay siyaan dhahay way ayaga bay ma dhaafaan ya inkastoo shanta farood simin oo dad shacab wanaagsan aan ku soo arkay ku jiraan laakiin ma badna waa dad kiyaakar iyo buuq badan weeyaan buuq bay kugu furayaan adigana stress ma ku noolaan kartid wadankooda waxaan leeyahay dadka soo guuraayo indha dheer lahaada ilmihiina kama heleysaan dugsiyo quraan kama heleysaan muslimnimo gooniya ma ka heleysaan runtii waxa ku sii dheer cunsurinimada bahdilka xushmad la'aanta ku sii dheer laakiin waxa ay ku fiican tahay wadan dalxiis waxa ay ku fiican tahay lacagtaada baxso hal mar dalxiis 2 week meelaha dalxiiska waa laga xushmeynaya lacag jecel dartiis meelaha dalxiiska wallahi baa maray marka tagtay halkaas lagu sidaya laakiin magaalada caadiga marka ku nooshahay Ankara ama Turkiga sida ay doontid bay ku bahdilayaan hadaba Soomaali tahayba aawa dadka dhijir Soomaali marka tahay Soomaali kaarta ish aawa dadka dhijir waa been weeyaan taas ogaada safaarada ku soo harta wadanka safaarada Soomaalida ee Turkiga joogto Soomaalidu wax uma qabato hadii aad run sheegaysaan dadkiina iqaamooyinka rajagtiga la siinayo oo la leeyahay wadanka nooga bax la leeyahay dadku waa la wada noolaadaa cilaaqaad bay wadanka leeyihiin dadkeena hadii ay degnaan karin hadii ay xushmad ku haysan karin maxaa loo degnaanayaa ama wadanka uga wada guura ama meel iska saar oo cilaaqaad bay leeyihiin madaxdiina intaad la tashataan dadka safaarada joogana u taga oo waxa tiraahdaan hala garnaqo oo dadkiina si sharaf leh xorriyad ah lacag bay Soomaalidu dadka adduunka ugu lacagta badan weeyaan wallahi waan ogaaday lacag baad leedihiin Soomaaliya dhulka ha isdhiginne lacagtiina aad ku nooshiin lacagtiina si raaxa walba uga noolaada annaga biil baan bixinaa qofka ugu yartaa $500 buu bixiyaa waa qofkii ugu yartaa dadkaas yaa lacagta wadan kale lacagta gelaysaa Soomaa wadan kale lacagta gelaysaa hada lacagta daada si xorriyad loogu noolaan karin ka waran soo waxa leeyahay wadanka sidiisa kale waa wadan jaban sidiisa kale waa wadan guriis iska jaban yahay maciishadiisa iska raqiis tahay waa wadan la iskaga noolaan karo laakiin dadka bilaa xushmad ah booliska ka daran yani waa dad noocaas dhaqaatiirta ka daran dhaca ka daran yani wax caafimaad fiican ma helaysid waayo caafimaadkooda haduu fiicnaa lahayd lagu daawila caafimaad fiican ma helaysid oo wiil baa hadda dhintay meeqa qof dhintay meeqa Soomaaliya daawo qaldan lagu wixii يعني عافمادك حتى سي حرية لو مهليسيد ترجمان في عن مهليسيد مهليسيد وبريفاتك وتوغو أو يكون عيان دولدي waxa ku leeyahay bila xushmad dhowr saac taagnaanaysa meel aniga la iga xushmeeyay meel degnaan kara maaha waxaan ka codsanayaa dadka safaaradda Soomaalida dhiig intaad isku yeeshaan aad hor fariisataan
بليز ورعد ككينا دادكاس أما دادكينا إني نونو بدقليان وسي قروح بدن أو في عن إن ودنك لوغو نولاادو إياه إن ودنك لوغا بحو labadaas anaga nimid labadaas wax ka dhaxeeya ma jirto adduunka si qurux badan baa looga noolyahay meel la mid ah bilaa xushmad anima soo arag sida loola dhaqmo Turkiyada Soomaalida si ka daran ma jirto meel loola dhaqmo haddana saasay tahay duqmuraadi iyo wadan horumar bay sheeganayaan iyo iqaamooyinkaas la isku diidan yahay reject la isa siinaayo adii mushaakilo aad u badan baa ka jira wadanka sida u baraaruga doolarka badan oo dadkan aad siinaysaan joojiya lacaga ay kastaraha ugu dardareysaan joojiya meel laga keenay ilaahay baa og qof baa soo shaqeeyay silac u soo maray idinkan waa iska dhiibaysaan Soomaaliyeed iska dhiibaysaan dadka qurbaha ka yimid oo sidoo kale meesha yimidna lacagtan aad ku fataaleysaan saaxiibadiina iyo walaalihiina iyo dadka baahan oo wadanka jooga u dira gabdhaha Yurub ka yimid ama nimanka Yurub ka yimid ama Mareykan ka yimid ama Canada ka yimid meesha dalxiis ku soo tagay lacagaha saas Turkiyada u siinahay hasiinina idinkaba wax ay niihayaan malahan abaale soo waxaan rajeynaya insha Allah halkaas ayaan ku dhameynaya videogan aragti dheer u lahaad insha Allah wadankaas ma ahan inaan wax xun ka sheega laakiin wallahi sidoo Ilaahay igu ogyahay ka sheegayaan ku soo arkay bila xushmada dabeecad xumada insha Allah waxaan rajeynayaa inaysan iska furfurnaato dadkiina u dayma la'aada muuqaalkan dad badan gaarsiiye siday uga feejignaadaan share badan dhaha insha Allah like badan ii saara waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.